saacado badan ayay taagnaayeen taalada cusub ee 14 Oktoobar ee isgoyska Soobe dadweyne fara badan oo ka yimid degmooyin fogfog oo ku yaala gobolkan Banaadir si ay ugu baroordiiqaan dadkii ku geeriyooday qaraxii masiibada ahaa ee ka dhacay 14 Oktoobar sanadkii hore ee 2017. Hareeraha isgoyska Soobe waxaa laga taagay boorar ay ku qoran yihiin oraahyo kala duwan oo lagu cabirayo sida ay ugu xun yihiin dadweynaha dhacdadaasi. goor dambe waxaa dadkii isu soo baxay isgoyska Soobe ku soo biiray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Banaadir, saraakiil ka tirsan ciidamada booliska iyo qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed. Sheekh Cabduqaadir Maxamed Soomow oo ka mid ahaa xubnihii guddiga gurmadka qaran ayaa goobta waxa uu ka sheegay in marnaba aan la dafiri karin dadaaladii wacnaa ay bixiyeen madaxda qaranka muddadii lagu guda jiray gurmashada dadkii masiibadaas ay aafeeyeen. kuwa ficilkan geystay waa ahlul naar nimaglaysiin kuwa ficilkan geystay waa ahlul naar ogaadaya waa ahlul naar naarta waxay moogyihiin intay ka dhintaan kuwii dhintay naarta ku jiraan wayna ku sii qarxayaan kuwii soo maamulay kuwii soo dabiray haddii ilaahay nabigeena wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam hadday dadka dhammaantood low anna ahla samaawaati wa ahla al-ardi samada inta ku sugan iyo arada inta ku sugan iftarakuu calaa damihi muslimin ay isku kaashadaan hal qof dhiiggiisa daadintiisa la akabahum allahu jamiica calaa naari walaa yubaali dhammaantood naaro gelinaya maxaad u malaynaysiin kun qofood in ka badan mid daqiiqa dadkii naga laayay oo muslim oo ahlu tawxiida lacana allahu calayhim وابعدهم الله عرامتي وادخلهم الله النار. دوقة مقدشو انجينير عبد الرحمن عمر عثمان يريسو waxa uu tibaaxay in dhacdada 14 Oktoobar ay ahayd mid ay ka barteen 10 maxaan ka baranay maxaysan naga dhaxashay maanta oo aan u joogno xusuus qaran waxaan rabaa shacabka weynaha Soomaaliyeed meel walba joogtaan inaan idinkaga mahad celiyo waqtigiina qaaliga ah oo aad u soo horteen oo aad u taagan tihiin qoraxda ujeedaduna tahay inaad u ducaysaan walaalihiin shacab weynihii Soomaaliyeed ee halkan lagu xasuuqay taasna mid la ilaabi karo ma aha ummadda Soomaaliyeed uma taagan isku tashatay mar walbana diyaara soo sidaas ma aha sidoo kale mudan ra'iisul wasaare waxa halkan ku jooga waa cududii dhalinyaradii Soomaaliyeed oo runtii tan iyo sanadkii ilaa haddaba u taagnaa gurmadka degdega ah oo la socoto maalintii dhacdadu dhacday adiga madaxweynaha dhiigga bixinayseen in dhalinyaro badan dhiigooda bixiyeen xoogooda bixiyeen xoolahooda bixiyeen isla markaana guddigii heer wasiirii guddigii heer gobolba la shaqaynayay maalinii habeen u taagnaa isbitaalada tagayay dadka soo tirikoobayay dhammaantood lama iloobi karo ra'iisul wasaare hortaada rabaa inaan uga mahad celiyo sidoo kale waxa maanta u taaganaa waxay tahay inaan dhageysano ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka si uu shacab weynaha Soomaaliyeed ugala hadlo masiibada qaran iyo wixii ka dhashay ugu horreyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dawladda federaalka oo runtii maalintii masiibada dhacday $1 milyan ra'iisul wasaare ugu deeqdeen dadkii waxyeelada ka soo gaartay sidoo kale dawladda Djibouti oo la iloobi karin intaas ka soo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dalka Turkiga iyo dalalkii u soo gurmaday oo gurmad degdeg ah soo keenay dadkii dhaawacyada u cuslaana wadamadooda geeyay ku soo daaweeyay haddana ay soo noqdeen bulshadooda ay ka mid yihiin intaas ka sokow mudan ra'iisul wasaare waxaan kaaga mahad celinaynaa sida aad mar walba shacabka u danaynaysaan isla markaana shaqo abuur u abuurtay dhalinyaro 5,000 gaaraysa oo maantana ay ka faa'iideysanayaan taasna waxaan rabnaa inay noqoto mid sii socota waxa kale jiro qorsho oo guddigii qaranka markaas la abaabulay waxay muujiyeen isxilqaan waxay muujiyeen isku tashi waxay ka soo aruuriyeen shacabka Soomaaliyeed lacago 4 milyan iyo 4 gaaraya oo loogu talagalay dadkii waxyeelada gaaray intaas kuma filna waxaan jecelnahay in dawladdu ay samayso mu'assaso waa ognahay waa markii ugu horeysay ra'iisul wasaare samayso wasaaradda musiibada iyo gargaarka iyadana hadda ay shaqo wanaagsan ku jirto wasaaradda caafimaadka maamulka gobolka Banaadir dhamaanteedba aan iska kaashanayno annaga ka maamul ahaan gurmadka degdega ah waxaan sameynay 2 degmo ayaan ka hirgelinay xarumo gurmad degdeg ah waxaan keenay gaadiidkii gurmadka degdega ah intaas kuma filna waxaan u baahanahay inaan 10 ka wasiirka koobaad ee dalka mudan Xasan Cali Khayr ayaa ugu horreyn waxa uu tacsiiyay ehelada dadkii ku nafwaayay masiibadaas sidoo kalena caafimaad degdeg ah u rajeeyay dadkii kale ee dhaawaca uu ka soo gaaray
Kheyre ayaa Al-Shabaab ku eedeeyay inaysan diin ka shaqaynaynin oo ay danahooda ay tahay inay gumaadaan dadka shacabka. Marka ugu horeysa waxaan halkan tacsiin uga diraynaa dhammaan eheladii dadkooda ay ku waxyeeloobeen qaraxii foosha xumaa oo halkan ay ka geysteen arxawanlaawayaashii diinlaawayaasha ahaa. Waxaan leenahay Ilaahay samri iimaan ha idinka siiyo. waxaa sidoo kale aan u ducaynaynaa dadkii ku dhaawacmay aan leenahay idinkana Ilaahay caafimaad degdeg ah idin siiyo waan idin garab taaganahay. Sida culimadu ay noo sheegeen kuwii diinlaawayaasha ahaa ee qaraxan geystay iyagu isma qarxiyaan oo waxay soo diraan caruur masaakiimiina caruurtooda ma qarxiyaan oo caruurtooda waxay u dirsadaan iskuullo waxay qarxiyaan caruur islaameed oo ay dhaleen shacab Soomaaliyeed iyagoo dad ku shaqaysanaya inay ummad Soomaaliyeed u baabi'iyaan shaqay u soo dhiibteen kuwa ajnabi ah. marka diinka ma shaqeeyaan waxay ka shaqeeyaan dulinimadaasna shacabka Soomaaliyeed way fahmeen meel baana looga soo wada jeestay. dambeyntii waxaan leeyahay dhammaan caruurtii waalidoontood ay ku geeriyoodeen halkan maalintii iyada ahayd waxaan ku amrayaa ama farayaa wasaaradda waxbarashadu in caruurtaas lagala shaqeeyo in kulligood la siiyo waxbarasho lacag la'aan si ay u helaan fursadda ay leeyihiin caruurta kale. Yuusuf Maxamed Axmed, warbaahinta Danan.